الله وبركاته kusoo dhawaada channel Sariika anigoo Sofees Hamid Umar waxna macaan English ayaa waxaan sharaxayaa tennis saddexaad oo horan xiriirkiisa u waday simple past tense waa tennis saddexaad simple of foot past waa tagay tense waa dhacda marka it's useful waxaa loo isticmaalaa action fail which kaasoo hadda dhacay in the past time waqti laga soo tagay ama xilliga laga soo tagay rulku wuxuu noqonayaa subject plus past verb plus object barnaamij magaceeladu I iyo you labada xab waxay wada qaataan did ay qaataan hadii singular hadii yihiin plural waxay wada qaadanayaan did ay qaadanayaan tennis aan ognahay waxaa loo kala qaadaa regular verb iyo waxaa loo kala qaadaa irregular verb oo soo taqaana weak verb ama strong verb okay regular verb maxaa la marka ama weak verb maxaa lagu qaadaa regular verb iska la markaasi ficilada jilicsan are verbs ficilo those kuwaas oo take qaataa la markaas ed in their past and time xaalamka waqtigoodii laga soo tagay the past simple iyo markaas weyn goorta la qosiyo adigu want adoonaysa adoonaysa goorta aad ku darayso markaas step 1 aan waxaan kala qaadan ilaa saddex qaybood step 1 step 2 step 3 step 7 waa sharxina markaan saddexaad siteen cloud oo kala simul present okay step 1 waxaan noqon markaas weak verb take b ficil jilicsan kuwa qaata diida waxa kamid ah how can we understand ku fahmi karnaa dhawan isku take qaata d in their past waqti laga soo tagay it can be understood waxaan ku fahmi karnaa easily si fudud if hadii the verb ficilku is end ku dhamaado markaas in the past time in the past tense markaas tense dhacdada laga soo tagay with taasoo ilaa markaas regular verb markaas ficilada markaas jilicsan regular waa jilicsan ama weak verb oo taqaani is added waxa lagu daraa markaas dia lagu daraa tusaale markaas here are some of them halkan waxa yaala markaas qaar aan ka soo qaatay and presentiga past barbar simple oo loo soo gaabiyo bb iyo meaning macnaha welcome waxa loo yaqaanaa waa presentiga past waxaan ka welcome barbar simple waxaan kana welcome waa soo dhaweyn prepare waa diyaarin prepared safe waa badbaadin safe use waa isticmaalid use bake waa dubid baked cure waa daaweyn cured abuse waa aflagaad ama caaysa u taqaanid abused greet waxa waa markaas waa abuurid waa greeted smoke waa cabid smoked love waa jecel loved hate waa nacib hated memorize waa xifdin waa xagga qaadna qoraalka waa memorize waa xifdin memorized like it oo macnaheedu jecel shay markaa jecel kale realize waxa markaas xaqiiqo ama garasho waxay noqonaysaa markaas realized advice waa advised abbreviate macnaheedu markaas in wax uu soo gaabiyo hadalka abbreviated test oo tijaabina ah waa test ama dhama test oo aan waa dhamin waxay noqonaysaa markaas test okay for example tusaale uu soo qaadanay erey memorize waxa u dambeysay waxaan ku daran d markaas pastor markaas aniga memorized money subjects ani waxaan xifdiyay maadada aad u fara badan qadra loved old man loved waxay jeclaatay old man nin weyn ama qaamin intuu ay jeclaatay you cured adigu waxaad daaweysay the patient nicely markaas bukaanka waxaad u daaweysay markaas si wanaagsan adiga cured waxaad daaweysay the patient bukaanka nicely si wanaagsan anagu tested waxaan dhaminay the mango cambaha rashka markaas si welcome wuxuu soo dhaweeyay the foreign country markaas wadanka shisheeye ama wadanka ajnabi ayuu soo dhaweeyay qaabkee loo dhigaa markaas statement question iyo negative sida loo dhigaa marka waxaan soo qaaday tusaalooyinka aan soo kamid ah soo qaatay we test waxaan dhaminay the mango cambaha waa statement hadal iska qof aad u sheegtay did we test anaga mid dhaminay the mango cambaha we did not test the mango anaga ma aynu dhamin cambaha barbar xalamkaas native question kiisu waxaan noqonaa markaas did not we test anaga ma dhamin miya the mango markaas cambaha halkaas waxaan u eg markaas tenniska qaybta koowaad tennis saddexaad step 1 oo kuwa qaata diida waxa inoo xigi doona step kan saad u jeedaan step 2 weak verb take of them ed kuwaas oo qaata weak verb ficilada qaata ed-da halkaas waxa inoo eg marka sharaxadeena waxa idin sharaxnay Sofees Hamid Umar waxana macallin English ah fadlan hadii aad channelka cusub subscribe inoo saar si aad inoo socodteen sida kuwa hore waa soo dhigay waxa inoo dhiman midkaan oo dhiman iyo 6 iyo 7 insha Allah soo dhigaya